بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد halkan waxaan ku qabanaynaa tacsi aan u dirayno ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday gaar ahaan guud ahaana ummadda soomaaliyeed sheekhi ummadda soomaaliyeed sheekh cabdinaasir xaaji axmed xaaji yuusuf oo lagu dilay magaalada kismaayo isagoo gudanaya waajibaad diini ah isagoo gudanaya dacwaddii iyo risaaladii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ay culimmadu ka dhaxleen isaga oo dadka faraya wanaagga kana reebaya xumaanta safar dheerna usoo galay jubbada hoose si uu dacwaddaas u gudan lahaa martiqaad uu ka helay walaalihiisa dacwadda iyo culimmada gobolkaas waxaan leenahay shiikheenna oonu aniga in badan deris ahayn saaxiibna ahayn gaara aqoonna aanu leeyahay ummadda soomaaliyeedna iyo muslimiintuna ummadda muslimiintana iyo deriskuba iyo dadka ahlu dacwada ah ay uga markhaati kaceen inuu ahaa sheekh dacwada ku foognaa oo ka shaqaynayey oo dadka wanaagga farayey waqti aada u dheer waxaa la qiyaasay ilaa 50 sano shiikhu inuu marka yaraantiisii laga reebo uu dacwada ku jiray ilaahayna tabaaraka wa tacaala diintiisa uu faafinayey dadka deegaanada uu ku nool yahay iyo kuwa safar ku tagana xaajooyinka la soo gudboonaaday inuu dadka islaax dhexdooda dhigayay waxaa leenahay sheekha allah u naxariisto ilaahay tabaaraka wa tacaala jannati firdowsa ha geeyo kitaabkiisana ilaahay midigta ha ka siiyo dacwaddii uu u shaqaynayey iyo xaqii uu ka shaqaynayeyna ilaahay miisaankiisa xasanaadka ha ugu daro intaa kadib waxaan tacsidan u diraynaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ehelkii iyo qaraabadii shiikhu uu ka tegey faamilkii shiikhu uu ka baxay ayaan tacsidan gaadhsiinaynaa qaarkood telefoon ayaan si toosa ugala hadlay intii aanan ismaqalna halkan ayaan ugu marinaynaa baaqan tacsida ah walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsi min alamwaali walanfusi walthamaraat wabashir الصaabiriin aladiina ida asaabathum musiibaة qaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxmah wa ulaa'ika hum lmuhtaduun walaalayaal ilahay kitaabkiisa wuxuu ku sheegay aayado badan iyo meelo badan inay geeridu ay tahay musiibo ay tahay iyo sifaadka kale aayadda lagu sheegay sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in lagu sabro ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu kaloo aayad qur-aan ku yidhi wamaa kaana linafsin an tamuuta ila biidni illahi kitaaba mu'ajala waman yurid thawaaba addunya nu'tihi minha waman yurid thawaaba alaakhirati nu'tihi minha wasanajzi shaakiriin walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu sheegay in aysan nafna waqtigeeda dhaafaynin nafina inaysan adduunkan ka tegaynin ilaa ay dhammaysato wixii ilaahay ugu talagalay adduunka ambiyadii baa walaalayaal dhimatay saxaabadii baa dhintay taabiciintii baa dhintay innaga waxaa laynooga baahan yahay laba arrimo kow waxaa laynooga baahan yahay sabir واصبر وما صبرك إلا بالله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala sabirkaasuu inooga baahan yahay ummadda soomaaliyeed iyo ducaadda iyo qoyskii uu ka baxay sheekhuba sabir ayaa laynooga baahan yahay waxaa kaloo laynooga baahan yahay sheikha ducadiisa iyo sabirka kadib waxaa loo baahan yahay sheikhu siduu isagoo intuu noolaa waxayna tarayey in haddii uu inteenan hadda nool inaga hormaray inaynu sheikhii isaga wax tarno maxaynu sheikh wax ku tari karnaa waxaynu wax ku tari karnaa ducada ah ilaahay inuu dembi dhaafo waxaynu ku tari karnaa ficil inaynu ku darno oo ah sheikhii in
masaajid loo dhiso, maraakiis loo dhiso, goobo dacwo loo dhiso, malcaamado qur-aan loo dhiso, cid walbaaba intay awoodo. hadday tujaarta dadka waxayse tahay, hadday ardadiisii iyo dadkii shiikha ka aflaxay ay tahay, hadday qaraabada tahay, qof waliba kaalinta uu ka qaadan karo arrintaas oo shiikha waxtar u ah, isaga sadaqa jaariyana u ah, in aynu wax ku tarno ayaa loo baahan yahay. waxaa laga yaabaa inaysan wakti deg dega ku suuroobin, laakiin in qof walbaaba qorshaha ku darsado, qof walba oo shiikha jeclaa, qof walba oo shiikha ka aflaxay, qof walba oo hadda la murugeysan, waxaa fiican inaynu ficilkaa u bedelno oo shiikhii isagii wax u tarno. walaalayaal, sabirna waa laynooga baahan yahay. ilaahay tabaaraka wa tacaala waa inaynu u sabirno murugadaas naxdinta badan, nabarkaa inagu dhacay, nabarkaa dacwadda ku dhacay, nabarkaa ummadda soomaaliyeed ku dhacay, nabarkaa deegaankii shiikhu uu ka soo jeeday ee uu dacwada saldhigga u ahayd ku dhacay. waa inaynu ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu sabirno, ilaahayna ku weydiisano inuu isagana u naxariisto, annagana nooga daba naxariisto, qoyskii iyo heladiina ilaahay inuu samay iimaan siiyo. intaasaan kusoo koobayaa. wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedi waaalihi wasaxbihi wasalam.